إنه الإسلام دين وحياة ويقين من إله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu sharxi doonaa ama aynu ka hadli doonaa kaalinta ay dhalinyaradu ku leedahay bulshadeena dhexdeeda. qof kasta oo bani aadan ah waxaynu ognahay waxa uu inuu bulshada ama noloshiisa ku leeyahay kaalin muhiim ah dhinac kastaba, haddii ay tahay ilaalinta diintiisa iyo naftiisa, dalkiisa iyo dhaqankiisaba. haddaba inagoo ku salaynayna ujeedada mawduuceenan, waxaan si qoto dheer u sharaxi doonaa kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin bulshadeennan. dhalinyaradu waa meesha keliya ee laga qaato miqyaaska jiritaanka ummadeed. haddii ummadaas dhalinyaradeedu tahay kuwo buuxiyey kaalintii looga baahnaa bulshadooda dhexdeeda, oo ay dhalinyaradaasi noqdaan kuwo u fikira dhinaca fiican iyo horumarka, ilaalinta diintooda iyo dhaqankooda iyo dadnimadooda, jiritaankooda, ka qayb qaadashada tiknoolajiyadda iyo tartanka waxbarasho, waxaa la yidhaa ummadaasi jiritaankeedu iyo mustaqbalkeedu waa mid rajo fiican leh. dhalinyarada iyo mustaqbalka ummad kastaaba waxa ay leedahay madal iyo meel laga maamuuso dhaqankeeda iyo jiritaankeedaba. haddayna taasi jirina, waxaa suuragal ah, welibana hubaal ah, in ay noqoto ummad habowsan oo halaysan, kuna dhex milanta si fudud ummadaha kale. dhalinyarada ayaa laga miisaamaa ummadda jiritaankeeda iyo hoggaankeeda. hadday dhalinyarada iyo ardaydu ay yihiin dad ifaafo wanaagsan leh oo tamarinaya hadafkooda iyo hiigsiga ay leeyihiin, qadarinayana aqoonta